ninka Soomaaliga ugu horeeyo isticmaalka la dagaalamay oo gumaystuhu diyaaradaha kula dagaalamay Sayid Maxamed Cabdulla Xasan buu ahaa. Soomaaliya halyeeygeega wuxuu ahaa Maxamed Siyaad Barre. kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idilkiinba goob walba joogtaan iyo si walbadana daawanaysaan halka hata sida tooskaada nagala socotaan waa Somali Voice TV. barnaamijkan waxaan su'aalo ku weydiin doonaa shacabka ama dadka xaafadda Reer Islii. barnaamijkan ayaa noqon doona barnaamij xiiso badan, si toos ah ayaad noola socon doontaan haday tahay markii kugu horeysay. fadlan subscribe noo saar. su'aalaha aan weydiin doono dadka xaafadda Reer Islii ayaa noqon doona wadan walba wuxuu leeyahay halyeey u soo halgamay taariikhda dalkaasi kaalin ka qaatay. Zimbabwe hadduu ahaa halyeeygoodii Robert Mugabe, South Africana uu ahaa halyeeygoodii Nelson Mandela, Soomaaliya waa kuma halyeeygood. su'aashaas ayaan dadka Reer Islii weydiin doonaa. dabcan si toos ah ayaad noo daawan doontaan. waan filayaa in barnaamijku uu noqon doono mid xiiso badan, isla socod wanaagsan ayaan ilaahay daawadayaa. wadan walba halyeey buu qabaa. South Africa wuxuu ahaa Nelson Mandela, Robert Mugabe wuxuu ahaa Zimbabwe. haddaba halyeeygii Soomaaliyeed kuma ahaa la yiraahdaa Cabdi Warsame. ninka Soomaaliga ugu horeeyo isticmaalka la dagaalamay oo gumaystuhu diyaaradaha kula dagaalamay Sayid Maxamed Cabdulla Xasan buu ahaa. sababta ku dhalan sababta ku dhawaxa weeye Afrika oo dhan ma Soomaali kaliya inay gumaysiga ka hoos bixi karaan waxa tusay Sayid Maxamed Cabdulla Xasan. Ethiopia kuma jirto weligeed lama gumaysan. Afrikadan oo dhan ninka tusay in gumaysi lagu haysto oo gumaysiga ka hoos baxaan waxa tusay Sayid Maxamed Cabdulla Xasan. adigoo ku bilaabaya magacaaga sidaan wada ognahay wadan walba wuxuu qabay halyeey. South Africa haddii aan ka bilowno, South Africa halyeeygooda wuxuu ahaa Nelson Mandela. sidoo kale Zimbabwe wuxuu ahaa Robert Mugabe. kumuu ahaa halyeeygii Soomaaliya? halyeeyga Soomaaliya wuxuu ahaa Maxamed Siyaad Barre. sababta Maxamed Siyaad Barre nin soo halgamay dalka wax soo qabtay ma sha Allah. dawlad oo nabad oo habeenii maalin la soconayo ma sha Allah. waa fahamino saas waay. marka Maxamed Siyaad Barre kale inuu naqdaan rajeena. adigoo ku bilaabaya magacaaga saan wada ognahay wadan walba halyeey ayuu qabaa. South Africa halyeeygooda wuxuu ahaa Nelson Mandela. sidoo kale Zimbabwe halyeeygooda wuxuu ahaa Robert Mugabe. Soomaaliya halyeeygoodii kuma ahaa? Soomaaliya halyeeygooda wuxuu ahaa Maxamed Cabdulla Xasan. ninka soo raacana waa Farmaajo. okay Sayid Maxamed Cabdulla Xasan baa tiraahday. Sayid Maxamed Cabdulla Xasan sababta ku tiraahday noo sheeg. sababtan kula dalku u dagaalamay, gumaystigu ka kiciyay, uu ku barbaray qabtaay Soomaaliland hadda meesha la dhaho ee Soomaaliya ka tirsan ka soo bilaabay. halkaas uu maartay dagaalka soo bilaabay. SL bilaabatay waa maartay daraawiishda sameeyay. gumaysigii ninka dalka ka kiciyay dalka u hagamay talada maanta uga dhisantay waa asaga. bilaabaya magacaaga wadan walba halyeey buu qabaa. Nelson Mandela sidaan wada ognahay South Africa halyeeygoodii ayuu ahaa. Zimbabwe halyeeygooda wuxuu ahaa Robert Mugabe. haddaba Soomaaliya kumuu ahaa halyeeygoodii? Soomaaliya halyeeygeega wuxuu ahaa anoo ku bilaabaya magacayga waa Aadan Nuur. Soomaaliya halyeeygeega wuxuu ahaa Maxamed Siyaad Barre. haddaba sababta ku dhalan Siyaad Barre? sababta aan ku dhahay waxay ahayd wuxuu ahaa ninka keliya ee wadanka 22 sano xukumayay. ahaa nin jecel ummadda Soomaaliyeed inuusan kala saarin. uu qabiil iyo waxba aan kala saarin. uu mideeyo. sidaas bilaabaya magacaaga. su'aasha maanta ka weydiinaya sidaan way ognahay wadan walba halyeey ayuu qabay. South Africa halyeeygooda wuxuu ahaa ninka lagu magacaabo Nelson Mandela. Robert Mugabe sidoo kale wuxuu halyeey ka ahaa dalka Zimbabwe aan raade. haddaba Soomaaliya kumuu ahaa halyeeygooda? adoo ku bilaabaya magacaaga. dhawahay marka hore magacaygu waxa way Cabdi Ziboy. marka koowaad waxa ahaa Siyaad Barre. wadanka wuxuu xukumay 20 sano. ninka ugu dambeeyay wadanka xornimada hadda waxa la haysiyo 20 sano ugu dambeysay markii laga jaro burburkii waxan markii laga jaro. marka waxaan leenahay halyeeyga Soomaaliyeed waa Siyaad Barre. adigoo ku bilaabaya magacaaga halyeeygii Soomaaliyeed kumuu ahaa? sidaan wada ognahay wadan walba halyeey buu qabaa. South Africa wuxuu ahaa Nelson Mandela. sidoo kale Zimbabwe wuxuu ahaa ninka lagu magacaabo Robert Mugabe. Soomaaliya kumuu ahaa halyeeygooda?
magacaygu waa Najib Boy su-aashaadana haddaan ka jawaabo Siyaad Barre sababtoo ah ninkaas kadib nabad ka dambeysa ma jirin Soomaali burbur iyo dhibaato una ilaa hadda ku jirtaa ninka ugu dambeeya wax qabto ahaa marka haliyiga Soomaaliyeed waxaa la Siyaad Barre ninkaas oo aaminsan heerka Soomaaliyeed inuu ahaa ku soo dhawo Somali Voice TV adigoo ku bilaabaya magacaaga saan wada ognahay wadan walba haliyi ayuu qabay Robert Mugabe wuxuu ahaa haliyigii Zimbabwe Nelson Mandela wuxuu ahaa haliyigii South Africa su'aashana ayaa waxay tahay kumuu ahaa haliyigii Soomaaliya wuxuu ahaa Siyaad Barre sababtoo haddii ninkaas adduunka Soomaaliya wuxuu u qabtay simaha wax weyn u qabtay saasaan u leeyahay maxaa ka mid ah waxyaabo uu qabto oo lagu xasuusan karaa isleed wallaahi waxyaalo badan buu ku bedelay Soomaaliya saasaan aaminsanahay adigoo ku bilaabaya magacaaga ku soo dhawo Somali Voice TV waxaan weydiinaynaa su'aalaha dadka shacabka reer Islii haliyey ayuu qabay wadan walba South Africa wuxuu ahaa Nelson Mandela Zimbabwe wuxuu ahaa Robert Mugabe haddaba Soomaaliya kumuu ahaa haliyeygood bismillahi raxmaani raxiim anigoo ay magacii ayaan maxamed cali oo Soomaali wuxuu ahaa Sayid Cabdulla Xasan